albaabka keliya ee diinta islaamka laga soo galo waa ku dhawaaqitaanka kelimadda laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah sala allahu calayhi wasalam oo loo yidhaahdo si ikhlaas ah oo baraxtir ah niyana lala yimaado. laakiin maxaa keenay in uu qofku iimaankiisu xoog lahaado mid kalena iimaankiisu uu licifaado? waxaan filayaa halkan u gol leeyahay inaad wax ka garanayso. ila soco oo ha iga herin. saddexdan shay ii qabo: buur, dab, qiiq. miga haysaa? sax. saddexdaa shay inaad fahantaan fili. dib ayaa kuu shidan. dibku wuxuuna ka shidan yahay buurta gadaasheeda. dibku muxuu bixiyaa qiiq. annaga buurta dhankan kalean ka joognaa. markaan dhankaa kale ka joogno maxaan arkaynaa qiiq. qiiq haddaan aragno maxaan leenahay meeshaas dibaa ka shidan. sax. laakiin maanan u hayno kii kale inaad meesha dib ka shidan yahay xaqiiq uma hayno. marka saddex gurub aan isu kala qaybin. gurub waxaan idhi geeskan buurta ka taagnaada qiiqaad noo fiiriya. gurub kale waa baxeen. waxaa la yidhi buurta korkeeda ku istaaga, waxaa meesha ka shidan soo ogaada. way baxeen, buurta korkeeda ay ku istaageen. debkii ayay indhahooda ku soo arkeen. gurub kale waxaa la yidhi idinka baxa, buurta ka degaandega, dibka u dhaadhaca, waxa inuu sawir dab keliya leeyahay iyo inuu deb yahay gacanta soo geliya oo soo ogaada. haddaba iimaankii saddex qaybood ayuu u qaybsamaa sidii saddexdan gurub oo kale: cilmulyaqiin, caynulyaqiin, iyo mid la yidhaahda xaqulyaqiin. cilmulyaqiin waa sidii adiga oo maaragtaa buurta geeskan ka taagan oo arkay qiiqa yidhi meesha debaa ka shidan. waxaa laga yaabaa marar badan inaad dhegaystid dadka hadlaya tawxiidka oo maaragta laa ilaaha ila allah in badan kaaga hadlaayo, rumaynta rabbi tabaaraka wa tacaala kaaga hadlayaan inaad dhegaystid. haddaad tahay ruux ku garasho og sheegitaanka ay dadkaad ugu sheekeeyeen ama sheekooyinka looga sheekeeyey iyo warkaa laga soo gaarsiiyey tawxiidka, haddaba waxaa tahay qof ka tirsan kooxda koobaad. kooxdeenna labaad maxay haayeen? waa kooxdii inta buurta fuuleen soo arkeen meesha inuu dib ka shidan yahay, indhahooda ku soo arkeen. haddii aad adiga intaad kacdid, cilmiga aad baratid oo tawxiidka kitaabaha ka soo baratid, axaadiista nabiga sala allahu calayhi wasalam aad raacdid, aayaadka tawxiidka ka hadlaya aad raacdid ood ku dhaqmaysid, waxaa tahay xirta labaad oo inta buurta fuuleen indhahooda u soo arkeen dabki. xirta saddexaad waa xirmaa, waa xirta gaareen xaqulyaqiin. taasina adduunkan laguma gaaro, aakhiro ayaa lagu helaa. maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ku wanaajiyaan waxay leeyihiin wanaag iyo weliba kordhiina. kordhiinadaasna culummadu waxay ku macneeyeen inay tahay aragitaanka rabbi tabaaraka wa tacaala. oo ahlu jannaha markii jannada ay galaan ayaa waxaa lagu odhan doonaa maxaa idiin dhimin? markaasay leeyihiin ilaahayow adigoo intaanna siisay wax kalaanba doonaynaa. markaasaa si darajo loogu wado meesha ugu dambaysa markii la gaaro ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala asaga xijaabka iska kashifaya oo istusaya. haddaba meeshaan u gol leeyahay ogow walaalkayow, kuma orodsiinayay, waxaan kaaga bilaabayaa darajada koowaade. waxaad noqotaa xirta qiiqa arkayso oo qiiqa fiirinayso ka mid noqo, oo dhegayso aayaadka iyo axaadiidta ka warramaya tawxiidka. shuyuukhda khayr allah siiye social mediaga ka buuxdo, wacdiyaashooda lasoo duubay, memorayaasha ka buuxdo, ka dhegayso cilmiga. haddii darajadaas ay ku kaamil noqoto
aad darajada labaad oo rabbigaa garo intaadan caabudin ka hore ilaa maxaa yeelay ruuxaadan garanaynin ma caabudi kartid ilaahay subxaanahu wa tacaalana waa inaad baratid oo kitaaba aad ka baratid axaadiista aad ka baratid kumuu yahay rabbi tabaaraka wa tacaala si ay cibaadada ay kugu fududaato oo aad u noqoto ruux ilaahay subxaanahu wa tacaala jecel waddadiina haayo aad u noqoto haddaa labadaa lagaa helana waxaan naftayda in naftaadaba u rajaynayaa in ay helaan darajada saddexaad oo ah aragitaanka rabbi tabaaraka wa tacaala maalinta la qaawan yahay ee la qatan yahay waxaan filayaa inaan ku wareerinin ood wax iga fahantay waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka haddii aad wax ka faa'iiday sii gaarsii ummadda kale si ayakana ay wax ugu faa'iidaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu